برساب ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan iyo maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur ayaa si wada jir ah xariga uga jaray garoon ciyaareed oo casri ah kaasi oo laga hirgeliyay magaalada Ceergaabo waxaana garoonkan casriga ah oo noqonaya kii ugu horeeyay noociisa isla markaasina laga hirgeliyo guud ahaanba gobolka Sanaag loogu magac daray Xoogsade Stadium xafladii furitaanka garoonkan casriga ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada madax dhaqameed kala duwan ciyaaryahanno iyo marti sharaf kale oo badan horeyna waxa goobtaasi ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay garoonkan casriga ee magaalada Ceergaabo yeelatay mulkiilaha Xoogsade Stadium Sharmaake Maxamed Xoogsade maanta waxaan u joognaa inaynu xafladan daahfurno garoonkan casriga ah ee Xoogsade Stadium garoonkan waa garoon loogu talagalay in lagu ciyaaro oo lagu dhiirigeliyo dhalinyarada waxaana garoonkan baahidiisu tahay xilliyada kubadda la ciyaaro hore way soo koobnaan jireen laakiin garoonka wuxuu dheeraad u siinayaa dhalinyarada iyo dadka waayay inay waqti u waayay inay ka qayb qaataan ama jimicsi ku qayb qaataan jimicsigooda isboortiska caafimaadka uu leeyahay jidhka bini'aadanka wuxuu kaloo wax ka taraa isdhexgalka bulshada iyo la dagaalanka dhaqamada xunxun ee dhalinyarada ku dhex jira sidoo kalena waxa hadalka isaga kala dambeeyay suduwaha dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Sanaag Maxamed Degayare suduwaha wasaaradda deegaanka Xuseen Talaahi Boqor Maxamed Nuux iyo marti sharaf kale oo ugu baaqay in dhul loogu taageero mulkiilaha hindisay garoonkan casriga inkastoo Somaliland Xasan Waraab Cabdi uu ikhtiraacay laakiin Ceergaabo waa markii ugu horeysay ee garoon noocan laga sameeyo waxaan inta ku dari lahaa Sharmaarke caqabado badan baa ka hor yimi waan la socday mar walba heerarka ay marayeen waxa ugu weynaa waxay ahayd dhulka runtii maanta maamulka gobolka uu joogaa gudoomiyihii ogsimihii ah maayirkii degmaduna uu joogaa anaga ka wasaarad ahaanna waanu joognaa waxaan door bidaynaa aan codsanaynaa inaan dhul Sharmaarke la siiyo si uu garoonka kan u helo garoonka kiru ku yahay waliye degmaba waayo meeshu waa kir waa run waan qirayaa inay kira tahay meeshu si loo dhiirado waxaan golaha deegaanka maayirku maanta inagala fadhiyo iyo gobolkaba laga saaciido waan leeyahay mulkiilaha maanta u horeeya dhulka waana wax loo baahnaa oo dhalinyaradu ay u baahnayd dhalinyaradu kaliya aan oranay dadkoo dhan ay u baahnaayeen maxay ahaydeen aad bay ugu mahadsan yihiin reer Xoogsado oo isboorti ka soo jeeda walba u yaal magaca Ceergaabo baa caan inoo ahaa kuwii safka hore galaa reer Sanaagaha sumcadda gobolkeena waa inaynu saacidnaa dhalinta gobolkeena waa inaynu saacidnaa dirayskiyo kabuhiyay ha u noqdeen diyaar garoomada eega ay gaar u leeyaheen oo aad u nooleeya ilmaha isboortiyada maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barsaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan ayaa iyaguna dhankooda soo dhaweeyay garoonkan casriga ah ee laga hirgeliyay magaalada Ceergaabo garoonkan runtii waa loo baahnaa waxay leedahay tahay waa bal isku mudan doona yar iyo waaweynba mulkiilahana waxaan leenahay Allah ku barakayo kii khayr qabana ha noqdo fikirkuna aad fikirtay mid saliim ah ninka soo dhalinyarada nin weyn ama hablahaba mustaqbalka Ceergaabo inaan maskaxda suujino oo in ka wada fikirro ayaa inoo ballana si aynu magaalooyinka kale u igsano una gaadhno aad baan wax lagu mahadnaqayaa boqolkiiba boqol Sharmaarke Xoogsade Maxamed Xoogsade oo u sameeyay garoonkan degmada Ceergaabo isagoo uu ahaa wax loo baahan yahay run ahaantii casrina ah dadkuna ay u soo daawasho tageen garoonka krooga lagu xidhay ee quruxda badan leh wax loo baahnaa weeye wax cusub oo aynaan araga u baahnayn weeye Ceergaabo waa qabow habeen iyo maalin waa ciyaar karayno ka adeedin dhalinyaraalena anu kolba nin baan hayo kuwa horeeyaan gabagabadiina waxa si toos ah xariga looga jaray garoonkan casriga ee ay yaalin roog ama geedaha cagaaran isla markaasina loogu magac daray Xoogsade Stadium kaasi oo laga hirgeliyay gudaha magaalada Ceergaabo Cabdiraxmaan Axmed Ilsar telefishinka caalamiga Star TV magaalada Ceergaabo